digan ka socda dawladda Eritrea ayaa waxa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Cismaan Saalax waxaana ku weheliyay la taliyaha gaarka ee madaxweynaha waddankaasi waxa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan ku soo dhaweeyay wafdigaasi sare ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ujeedka halkan u yimaadeen ayaa lagu sheegay inay ka jawaabayeen booqashadii taariikhiga ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay magaalada Asmara ee waddankaasi iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya labada dawladood madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku tagay magaalada Asmara ee waddanka Eritrea booqasho taariikhi ah taasi oo lagu gogol xaarayay xiriir taariikhi ah oo dhexmara Soomaaliya iyo Eritrea uu madaxweynuhu ku tagay dalka Eritrea socdaalkaas oo ay aad u soo dhaweeyeen ayay goosteen inay dhaqso uga soo jawaabaan wuxuu muhiimadda xambaarsan yahay waxa weeye in la xoojiyo xiriirka labada dal ee walaalaha ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxa ay doonayaan inay xilligan sameystaan xiriir cusub oo ku qotoma sidii geeska Afrika ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga waa markii ugu horeysay ee wafdi ka socda dawladda Eritrea oo heerkan gaarsiisan ay yimaadaan magaalada Muqdisho